السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawow Face Groups maanta waxaan halkan kugu barayaa qaabka aad u samayn lahayd waxa la yiraahdo Google Forms gaar ahaan registration form marka waxaan tusay hadda qaabka loo sameeyo waxa la yiraahdo Google Forms marka waxa boqonaysa waxa la yiraahdo channelka tag ama browserka tag hadaad isticmaalayso Chrome hadaad isticmaalayso Firefox hadaad isticmaalayso waxa la yiraahdo Internet Explorer ama Microsoft Edge hadaad isticmaalayso Windows 10 marka waxaad qoraysaa waxa la yiraahdo Google Docs doc Google aad qoraysaa waa linka ugu horeeya soo ujeedid ku dhufo kaas marka kaas ku dhufatid waxa ku soo baxaya option fara badan oo siinaya inaad sameysid waxa la yiraahdo sheets slides iyo forms ana waxaan doonaa la yiraahdo forms aan doonayna si aan u sameyno waxa la yiraahdo form kaas oo runtii aan doonayna barano waxaan leenahay marka hoos soo yara deg waxaad arkaysaa go to Google Forms kala ku sika marka kala ku siidid waxaad arkaysaa la yiraahdo qaybtan ku soo bandhigaya marka start a new form oo kuleeyahay marka template meeshan ku soo bandhigaya template kala duwan soo ujeedid blank contact information RSB party invite t-shirt sign up contact information waxa la yiraahdo find a time RSV party waxaas ku soo bandhigaya marka event registration t-shirt sign up waa boqolaal kala duwan oo soo bandhigaya marka midda aad ka dooran lahayd waa dhankaaga laakiin aniga waxaan qaadanayaa waxa la yiraahdo tusaale contact information marka kaas doorano waxaan ku sameeynaynaa edit aan ku sameeynaynaa insha Allah marka soo yahay meeshan hore wali marka contact information marka magaca ka bedelno xalina marka fadlan halkan iska diiwaangeli maadaama uu yahay formkeenu ku saleysan yahay isdiiwaangelin ciwaan waxaa u dhignay inaan qofkii soo booqdo oo arko ciwaanka guud oo aan ku leenahay fadlan iska diiwaangeli halkan laakiin hadaad doonaysid in waxyaabo kale ku qorto oo aad u isticmaalaysid barnaamij kale ciwaanka guud halkaas ku qor ma aha inaad ku qorayso oo kaliya fadlan iska diiwaangeli halkan laakiin ciwaanka aad doontid kuna habboon waxyaabaha halkan aad ku diyaarinaysid ee ku qoraysaa okay marka description waaye waa adaa laga doonaya ka inaadid formkan waxaa loogu talagalay in ay ardaydu iska diiwaangeliyaan si ay u helaan casharrada looguna soo diro imaaladooda okay marka ardaygii ciwaanka akhrista oo ay ku qoran tahay fadlan iska diiwaangeli halkan waxa kale u fududaysa halka akhristo halka u dhigto ogeysiis yarka oo ku saabsan barnaamijkeeda marka ardaygu wuu akhrisanayaa kadib wuxuu raacayaa fariintaada okay name kala ku siisa u bedesho waxaan leenahay marka Soomaali maadaama aan ka rabno halena magaca kadib waa halkan laga dooran kartaa inuu checkbook si aad marka anaga waxaan doonaynaa wax lagu qoro soo marka waxaan leenahay short answer aan leenahay marka maadaama aan answer ama jawaab ka sugayno qofka arka barnaamijka email leenahay waxaan leenahay ciwaankaada waxaan leenahay marka ciwaankaaga okay kana waa short answer halkaas ka fiiri fadlan required laga doonayaa marka haddaadan required ka dhigin qofka wuxuu u ogolaanayaa inuu sanad salan email ku dhahay marka anigu waxaan doonayaa inuu ardayga emailkiisa helo si aan casharada ugu diro sidaa darteed waa halkan required ka dhiga marka waxaan doonayaa ardaygu hadduu emailkaas ka boodo emailkaas gelin inuu waxa uu shaqeyn oo la dhaho fadlan emailkan geli si aad u rukumo barnaamijka okay address waxaan ku qornaa la yiraahdo halka aad joogto
okay halkaa joogto qornay wax ka dhigana require iska fiiri mar walba phone number waa horta lambarkaada marka markaa qortay lambarkaaga sidoo kale waxaa ka dhigta la yiraahdo short answer ka dhig requirement ka dhig halka waxaan ku qortaa comments waxaan ku qortaa fikirkaada ka dhiibo anaga tusaale waaye marka fikirka ka dhiibo long answer ay u baahan tahay marka waxaa ka dhigana paragraph wax la yiraahdo ardayga waxaan ogolahay inuu qoraal dheer ku qoro halkaas waxaa lena required iyadana si ardaygu ay masti u noqoto inuu buuxsho marka tricks yar la isticmaalaa marka kan geeska aadid qaybtan midigta aadid waxaa arkaysaa 3 dhibic oo dul saaran ujeedada calaamada guudka ay saaran tahay klik ku sii hoos yara deg waxaa arkaysaa add honest intuu dhufato halkan waxaa ku jira barnaamijyo badan ee halkan ku jira ardaygan loo baahan inuu isticmaalo fadlan si yara eg marka halkan aniga halkan ay u diyaarsan yihiin waxaa halkan igu yiraahdo form limiter ama form xadidi halkan ay u diyaarsan waxaa leenahay set limit marka set limit ano halkan ay soo bandhigayaa marka set limit marka kan wuxuu ii ogolaanayaa ardayda tusaalahaan waxaan doonayaa inaan bilowno maado la yiraahdo video editor sidaa darteed maadada waxaan doonayaa inay dhigtaan arday gaaraysa adiga 30 arday marka waxaan isticmaalayaa marka ardaydu is diiwaan geliyaan 30 arday markay is diiwaan geliyaan ardayga 31aad oo isku dayo inuu is diiwaan geliyo waxa uu u sheegayaa inuu weysiiyo in formkan uu buuxsamay oo san iska diiwaan geli karin maadadana 30 arday loogu talagalay ayna buuxsameen marka waa muhiim waxaad leedahay number of form responses oo dadka form buuxiyay waxaa marka 30 halkan ku qorayaa marka 30 ku qoro wuxuu kale option ii siinayaa inaan fariin u qoro qofka 31aad marka wuxuu leeyahay message when submissions are closed marka uu 30 arday ay buuxsamaan ardayga 31aad waxaan dhahaa uu leeyahay marka waxaan ku qorayaa sorry ustaad ardaydii loogu talagalay maadadan ardayda loogu talagalay maadadan 30 arday sorry ustaad ardaydii loogu talagalay maadadan mar hore ayay dhamaystireen diiwaangelintooda waxaan ku rajaynaynaa in aad ka faa'iidaysato barnaamijyada dambe mahadsanid kadib waxaa leedahay marka save and enable kadib ardaygii 31aad maadaama aan ugu talagalnay 30 arday markuu foomka buuxsamo 30 arday is diiwaan geliyaan marka ardayga 31aad waxaa leeyahay barnaamijkan waa xirmay waxaa loogu talagalay 30 arday 30kii ardayna hore ay isu diiwaan geliyeen ustaad marka waxaan ka codsanayaa halkan ku qoraynaa fariina ugu qoraynaa aan ku dhahayno aan ugu sheegayno inuu foomkan buuxsamay ardayda loogu talagalay la qaato okay marka maadaama aad saf dhacday iska kasal garay ku laaba halkii waxaa ku jira la yiraahdo form calendar form notifications asna waa muhiim hadaa ku dhufto halka soo jeedid halkan ugu soo baxaya waxa la notify me marka waxaan doonayaa ardayga is diiwaan geliya inaan automatically u helo lambarkiisa ciwaankiisa halka uu joogo waxaan doonayaa inaan ogaado akhbaarta halkan ku qoray inay si toos ah igu soo dhacdo emailkayga mar walba arday is diiwaan gasho toos emailka aan u arko haddaadan barnaamijkan sameynin waxay qasab kuu noqonaysaa inaad mar walba foomkan booqato oo aad fiiriso dadka is diiwaan gasho marka haddaa barnaamijkan sameydo waxaa kuu fududaanaya in arday walba oo is diiwaan geliya halkan oo toos ugu soo dhaco tusaale hadda emailkan oo ku qoran yahay marka wuxuu halkan kale option waxa kuu siinaa la yiraahdo sending notifications after every marka 10 qofood markay is diiwaan geliyaan hal mar ay soo diraan ku qoran laakiin ma doonayo waxaan doonayaa inaan ka dhigo hal arday kasta markuu is diiwaan geliyo ii soo diray aan leeyahay marka halan ka dhigay halkaas okay waxaan kala option haystaa inaan
warbixin ama ama qofkii isdiiwaan geliyey asna aan fariin kale u diro ayaan halkan haysta. Marka waxaa leeyahay marka notify responders ama dadka isdiiwaan geliyey u jawaab si automatic ah. Marka aniga marka qofka email soo diro inaan u jawaabo waqti uu qaadanaysa, laakiin barnaamijkan ay suurta gelinaya inaad si automatic ah ugu jawaabto. Halkan waxaa ku qoran ujeedin notification email subject waa marka qofka hadda qofka email ku dhacayo ciwaanka guud uu arkayo ayaa la yiraahdaa subject. Marka waxaan ku qorayaa thanks, waxaan ku qorayaa su'aal si uu ogaado qofka soo diray his groups official. halka ku qorayaan aan ciwaan uga dhigaya. Halkan marka waxa uu siinayaa notification email badi oo waxyaabaha qofka aan ogeysiin. Waxaan leeyahay marka ustaad waad ku guuleysatay inaad iska diiwaan geliso his groups. Maasanid si share garay foomka si ay arday badan uga faa'iidaystaan. waxaan leenahay safe si aan soo garayno. waxaan leenahay safe aan leenahay kadib ardayga isdiiwaan geliya aniga waa liisoo dirayaa, asigana emailkan loo diraa oo igu qoran his groups. halkan aan ku ogeysiinayo inuu isdiiwaan geliyey marka wax walba waa automatic. marka waxaan filayaa inaad casharkan ka faa'iidaysatay. fadlan haddaad ka faa'iidaysatay si share garay si asxaab badan uga faa'iidaystaan runtii ayaan ula share garay asxaabta kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.